أنا أبوك أحمد علي دقنت ولد حنشولي كثر دقمة جوهر وجرت إلى 6 كيلومتر 7 كيلومتر إلى مهديس والمهدس الله أسكله الله يسقنات waxaan idin sheegaa marka in aan ku haysano hormuud kaalmo aad u fiican ay ka mid tahay isgaarsiinta meel walba adigu adeegahaysa aniga waxaan ahay nin reer baadiye ah waxaan ka adeegtaa ilaa degmada Mahadlay ilaa Xamar adeega u baahdo iyo wixii lagaga baahdo waxaan daqiiqada ku heli karaa oon ku fusho karaa daqiiqado anoon gaari raacin anoon qof adeeg u dirin anoon cariiri marin hal doolar ku shubaa teleefankayga duntaan rabaan ku ooftaa oo waqtiga hore bila qaada jirta bilo haddii aan ka soo qaado isticmaalka xoolaha qiimahooda waa wareysanaa markaan anaga xoolahan ku tiirsanahay iyo beertaan ku tiirsanahay waxaan wareysanaa meel kasta ma suuq ka leeyahay wax hadday subaga tahay hadday caanaha tahay hadday nafka noloshiisa tahay waqti abaaraa jiro waxaan uga faa'iideysanaa meel kasta meesha daaq leh ama beer la iibsada leh inaan teleefankeena adeegsano xog ogaan aan saas ku helno kabacdina AFC aan lacag inta tuurano meel aan tagin aan wax ka gadano meel aan tagin oonan arag oonan aqoonin inaan wax ka iibsano waxaa suurtageliyay shirkadda hormuud iyo AFC